madaxweyne Muuse Bixi hadduu wax noo dhisayo wadada isku xidhaysa loo yacadiyo saylax noo sii daayo warta madaxweynihii waan soo dhaweynayaa Daahir Kaahin waxaan ku soo dhaweynayaa bad waan u baahnayn tolo wax la arkay deynta xilka hay waxba kama qaban Daahir yaala maanta lama oran karo talaabo halka ka qaaday ma jirto 12 sano 13 sano maqnaa waxa jiray lacag hore oo la qaaday oo maca dumarka saqadleyda laga guray oo dumarka dahabkoogii laga guray oo tukaan walba oo boorama iyo cawashad walba laga guray lacag tiina dib loo xisaabtamo madaxweyne Daahir yaala waa madaxweyne nabadoonkay dimuqraadiyadda la sheegay ninkuu kooyay aad baan soo dhaweynaa arinta ku baaqay dekada dawladdan waxaan ku suganahay bartamaha suuqa farsamagaalada Boorama telefishinka Sky Cable TV ayaa waxa uu wax ka wadiyay bulshada ku dhaqan magaalada Boorama sida u arkaan ballanqaadkii madaxweynaha hore Soomaaliland Daahir yaala Kaahin oo maanta ku ballanqaaday in la dhisayo dekada lagu hayaa oo in badan bulshada Boorama iyo guud ahaan bulshada gobolka Awdal ay ka dhursugayeen dhismaheeda dadweynaha ku wadin artida ku aadan ballanqaadkii madaxweynaha hore ee dhismaha dekada lagu hayaa ay waxay ka jawaabeen sida tan anigoo Maxamed Isaaqa Daahir yaala niniga yaqaan ma jiro waan wada shaqaynay isku arday baan ahayn hadalka uu yiri dekaduna waa run ninkii beeninay isagay jirtaa anu waan ku kalsoonahay dadka xoolta u dhashayna aniga ka mid ah warkaas Daahir wado anu waxaan arkay iyo ololeeya sacabka itumo baan arkay ilaa halka ilaa waxaan daba joognaa ilaa 8-tanadii iyo reerka isdaba joognaa waxa la wax faa'iido ku hayaani ma jiro xagga raggan waxa sheegaya awdal state bari state daayana ama teed ku asro kumaayaan warinteena yaroo dhisnaa inuu qaatay intaan saylaciya ku dhisi lugaya ku dhisaya halkan milyan waa shaxaad baa wakiil lagu qadinay daradeerkeena meesha xalla wax ka jira ma jiro madaxweyne waanu ka aqbalay meel baa calooshu naga xanuunaysa runta marka la sheego maalintii dhawid ma ana joogna gacantan taagi lahaa wadadii Djibouti iyo isku xidhaysayaan Boorama ee la ballan qaaday wadadana hal noogu darabada waliba wadada ha horeyso marka meel la marayo wadada horeysa wadadana noo horeysi badda aad ma aragtay ku ballan qaadeenna waanu soo dhaweynaa ay reeyalaana ku kama filayn warqad loo soo dhiibo 1 milyan kama filayno markaa madaxweyne Muuse Bixi hadduu wax noo dhisayo wadada isku xidhaysa loo yacadiyo saylax noo sii daayo oo saxiixiisu ku xidhan yahay sii daayo laakiin iminka iyo leeyahay bay tahay dadkaygana waxaan leeyahay in markasti been iyo mu'aamarad noo sheego aqligeena inagu ciyaaro maalin kasta ma oo leeyahay dekad baa inii dhisaynaa waxba inii qabanaynaa beentaasina markaa way soo gooshatay xadkeegii intaana waan ka dhareegnay 1 milyan waxaan leenahay madaxweynaha 1 milyan waxba noo qaban maaye u celi baan leeyahay tolkayna waxaan leeyahay ragna maqlafato saamihi disfaalooda isma raaca tawfiiqdu waa lama huraane oo miidaanka markaa leeshaan midigu miishaama waa ninka kaliya ku dhiiraday inuu qabto shaqada wana fiican yahay wuu ku maadsan yahay soo galameys odunna wuu soo celinaya muusana kama socdo magaceeda bursu ku socda wuu ku dhiiri gelinaya sharaf iyo karaamay u tahay wuu dhiiri gelinaya way gada bursiya ciise saaqto dhanba waa loo dhaxeeya innaga Boorama lagu dhisay ninka dhisay sharaf ku bixiye mugiyo miisaan buu ah ina bixiye markay sameysana waxba kama qaato ya soo galameys si fiican buu u wada ya aadna ugu maasay wuu gelinaya taariikh gal ha noolaado wuu gelinaya waxaan halkan ka taageerayaa madaxweyne Daahir yaala Kaahin dekad talaabada dekada uu ka qaaday ee uu yiri degadeena waan dhisano constitutionna aanu ku sameysano aad iyo aad baan u taageeray shalayna waan taageeray haddana waan taageersanay dadkana waxaan jecelahay inay ku hididilaan oo talaabada uu Daahir yaala qaaday ay si fiican ay ku hididilaan oo dekadooda dhistaan Daahir yaala anu aragtay ka aaminsan waxa weeyaan odaygu isagoo aakhir lacab ku jira inuu ma taqaanaa waxa ay oo iska nasto maanta inuu ma taqaanaa ummadda wareeriyo oo dekad 25 milyan 125 milyan ku baxay kaambiga ma taqaanaa dhismeegu inuu maanta 1 milyan oo jacdagay oo la soo baxo waayo waa nasiib darro ninkii masarka ugu sarreeyay raa awdal ka taagna inuu maanta ninkii u shaka ka soo saaray madaxtooyada inuu maanta ma taqaanaaye uu ololeeyo oo kaambiin uu ka dhigo 1 milyan baan hayaa war 1 milyan aad hal konteenarka la dhigayo dekada lagu sameeyo ma iibiso konteenarka ka qaadanta 1 milyan la sheegay aragtida aan ka qabo Daahir yaala Kaahin waa madaxweynihii hore ee Soomaaliland waana ninka mufikirka ah ee mustaqbalka Soomaaliland
dadku ay u malaynayaan inta badan somalilan inuu somalilan dhisay kamana dambaynna la yidhaha kamana horreyn markaa madaxweyne haddaad maanta gobolkaagii timid wuxuu kaaga baahan yahay gobolku waxqabasho wuxuu kaaga baahan yahay waxqabasho mugle aad u weyn miisaan culus dadka iyo dadkabaad isku keento markaa haddaad tidhi maanta deked baan samaynayaa halka ree awdal bugta dadka kalena ay uga hadheen nin kastina wuu og yahay waana deked haddaad ku dhawaaqdo dekeddii saylac baan samaynayaa 100% waad mahadsan tahay allahna kula garab qabto waan soo dhawaynaynaa ta kale dekedaha marka laga hadlayo waxbarashada iyo dekedaha iyo kaabayaasha dhaqaaluhu waa wax isku wada xidhan intaasba gobolka in loo sii daayaan rabnaa waxa kaloon rabnaa in garoonkan yar ee halkan noqday mashruucii faanoole garoonka noqday reer boorama in la furaysna waxaan kaloon ku weydiinaynaa bal halkaa uu ku dambeeyey amaan la arkay ama aan haybinayna ilaa hadda dariiqii la odhan jiray jabuuti baa laga keenaya booramayn maraya taasi haddayna reewadeen ama baraankii isna wax kaa jawaab oo ka hadal baan ku leenahay hordawaad mahadsantay weliye arrintaa aad weydiisay aad baa loogu faraxsan yahay madaxweyne daahir riyaale waa madaxweynihii nabadda unkay dimuqraadiyadda la sheegay ninkuu ka weeyey aad baanu soo dhowaynaynaa arrinta uu ku baaqay ee dekedda mid baan ka odhanayaa halkaa milyan uu dollaruu soo qaaday waxaa loo baahan yahay sabraan inuu bixiyo 2 milyan oo kale dekeddaasina deked caalamiya noqoto anigu waxaan jeclaan lahaa in dekeddaa lacagtaa loo dhibo DP World oo deked caalamiya laga dhigo arrintaa daahir riyaale keen waa soo dhowaynaynaa isaguna waa madaxweynihii ugu daacadsanaa somalilan wadaan raaya ka hadlo waxaan u arkaa daahir riyaale inuu yahay rabana inuu masiirkii dadkiisa god ku rido shalay tole waxa la arkay deynta xilka hayay waxba kama qaban daahir riyaale maanta lama oran karo talaabo halka ka qaaday ma jirto dee 12 sano 13 sano maqnaa waana nin la adeegsanayo waxaan ka aqbalaynaa ma maalinba wixii laynoo yeedhin inaan iska qaadano dee maaha waxa weeye anigu fikirkaa isaga ah eedhe maaweelo kambayn oo doorashooyinka lagu galayo un baan u arkaa ya oo naga sii horey adiguna olayn xisbiga kulmiya waa jaanis weeyaan wauna kaga dhabeeyey ballanqaadkii markaa waxaa weeye uu soo dhoweyna haddana dadweynaha gobolka odooma degmada boorame waa jaanis in dekeddaa la furo yaa aad iyo aad baan soo dhoweyna madaxweynuhu ku mahadsan yahay aad buu ugu mahadsan yahay aniga oo horta jaaniskaa ka faa'iidaysanaya madaxweynaha daahir riyaale waa madaxweynihii jamhuuriyadda somalilan xurmad gaaru igu leeyahay may fahamtay laakiinse arrinkani waxaan u malaynayaa waa arrin siyaasadaysan waxaan la hadlayaa madaxweynaha iminka hadda talada haya ee muuse bixi axmed isaguna waa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qiimo gaaru igu leeyahay madaxweyne arrintaasi ma siyaasad baad uga jeeddaa shalay toolaba dhulkii badnaayee aad dhagaxa dhigtee waddada halkan ahaydee jabuuti baan isku xidhayaa lahayd habeenkii waa lagu tiraantiroodaa midda kale xabashigii aad lahayd dikad baan siiyey iyada arrinkayga halkuu ku dambeeyey haddii ayna siyaasad ahayn oo aanad kaambeyn aanad ku doonayn arrintaa waannu soo dhowaynaynaa laakiinse haddii ay siyaasad tahay taariikhdu waa isqortaayee ka fiirso nin mas-uulo beenaala ha noqone ka fiirso baan ku odhan lahaa ka fiirso madaxweynaha daahir riyaale horta waxaan leeyahay sidaan kumoodin waad noqon waxaad noqotay hal bacaad lagu maalay waayo kaamaanu filayn annagu 8 sano sac kuu tumay anigu taageeriyo udub baan anigu maanta kaama filayn deked baan dhisay war waddadii jabuuti iyo gobol isku xidhayay maxaad uga hadli wadadii fur weeday intaad maanta leedahay 1 milyan baan nii wadaa haddaad gobolka weeranaysid idhaahdo dekedda lukayaad baan dhisayaa waayo waxaan nahay muwaadiniinta reer lukayaad annagoo ku faraxsan inkastoo maalmalaabadda la iibinaya laakiin aan la ogolaanin laakiin daahir riyaale fakirkiisa waan ku raacsannahay waana jecelnahay inaan noola dhiso dekeddeeda waxaan leenahay daahir riyaale ha noolaado madaxweynihii hore somalilan daahir riyaale kaahin halkan hawl adag buu galay intii madaxweynaha uu ahaa hawl ka adag buu galay maanta hawshaa u galayna waa hawl aad iyo aad u wanaagsan waana ku taageersannahay madaxweynahaygii hore inuu hawshaa lughayaad soo hadal qaado oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse bixi au kala hadlo dabeetana muuse bixina au waajibaadkii daahir riyaale au lahaa au u fuliyo waannu ku raacsannahay dekeddana waa la bilaabi daahir riyaalena waa lagu garabgali dekeddana daahir riyaale waa kii yidhi maxay ahayde iminka wuxuu yidhi jeeggii dawladdan ka qaaday gacantan ku hayaa war wixii had haysaan gadabuursow inaguna keena waa kii yidhi intaasoo sano waxaad ururaysaan keena buu yidhi waxaan leenahay gadabuursiga qurbajoogga iyo gadabuursuga ganacsadayaashaana waxaan leehay waar haddaad dad islaama tihiin waa nigii dekadu dhimanayee waar nin walloba waxaaga ku soo darso oo kaale ka shaqay madaxweynaha soo carrabaabay inuu dalka maaragtay deked iyo maaragtay bilicda iyo airbortba wax ka qabanayo run ahaantii haddii aan ka hadlo codkayga iyo ray ahaantay aad baan ugu faraxsanahay oo aad baan u rabnay
madaxweynuhuna waxaan leenahay arrinkaad soo carrabaabtay ka dhabay madaxweyne maaha kaambeyn maanta maalintii kaambeynka maaha maalintii waxqabadkaa loo baahan yahay kaamaanu sugan 1 milyan oo 0.1 ka ah dekadda sayla dekadda luhaya waxaa lagu dhisayaa lacag 125 oo milyan oo dollar laakiin 0.1 na ma waxaan ka haynay 1 milyan ayaa ka soo tagay 1 milyan ma haya kaamaanu sugaynin kaamaanu dadka raacooda lama yeelayaan waxaan leenahay boqolkiiba 50 oo boqolkiiba 40 madaxweynaha ka soo qaad boqolkiiba 40 ka soo qaad dadka raacooda inta kala bixiyaan shirkadda madaxweynaha hore jamhuuriyadda Soomaaliland Daahir Yaale Kaahin ayaa wuxuu ka dhawaajiyay waxqabad dekadii luhaya in la dhisayo horta waxqabad lama diido waxaa la yidhi kaadi badan waa loo golbadayaa waxaanu ogeyn xisbiga kulmiye markuu madaxweyne Siiraanyo kambeynka ku jiray inuu dekada lughaya iyo saylax iyo wadada tagta Boorame ilaa Djibouti oo dhagax dhigay kambeynka uu ku galay ay soo hirgelin waxaanu ogeyn madaxweyne Muuse inuu isaguna lafteeda tabtiyo maray balse haddana maantana waxqabad baa loo soo dhibay Rayaale oo warqad buu keenay diidi mayno waynu ka dhusuweynaa laakiin waxa uu taranu taasoo madaxweyne deel hirgelin waayo oo taa lagu soo dhibay dhamaystir waayo u taray hadday dhabtay waan soo dhaweyna welcome haddii ay hirgeli wadana dee tiiteedu bay noqonaysaa madaxweyne dee waa iska dhiiqadeeduna laakiin waxaanu soo dhaweynaynaa bal haddii maanta ay ballanqaadka la hirgeliyo haddaan ka hadlo fikirkayga madaxweyne Daahir Rayaale horta waa madaxweyne hore waddanka soo maamulay muddo dheer wuxuu inaga mudan yahay ixtiraam madaxweyne Daahir Rayaale waa madaxweyne sharaf inaga mudan waa madaxweyne gobol ka soo jeeda waxaanu ka digaynaa in waxyaabaha iyo xisbiga kulmiye inay ka dhigtaan campaign dekada lughaya iyo airportka Boorame waqti dheer bi xidhay ilaa intaan garaadaysanay Soomaaliland jirtaba maanu aragay uga shaqaynaya sidaa daraadeed mar walba xisbiga kulmiye oo xilkii ka sii dhow yahayna way dhagax dhigaan mar walbana way dhagax dhigaan marka waxaanu ka digaynaa madaxweyne Daahir Rayaale ixtiraam buu inaga mudan yahay laakiin aflagaadayn mayno waxaan leenahay madaxweyne Daahir Rayaale ixtiraam baa naga moontayana dhiiqo lugaha lagu gelin Soomaaliland horta noolaato Soomaaliland hadalka Daahir Rayaale soo yeedana waan ku raacsannaa waan ku taageeranaa waxa weeye tegada hanoo furo airport hanoo furo waana ku guulaysanaynaa waa iminka sheekada la isku wadiyo madaxweynaha Daahir Yaale Kaahin waanu taageeraynaa waa ninkii macallin Sacno soo xirigeliyay waa madaxweynahaygii aad iyo aad baan u taageeraynaa waanu soo dhaweynaynaa qof kastoo waxqabad la yimaada inuu waxqabad la imanayna waan hubnaa gacmo furan baan ku soo dhaweynayaa dekada lughaya waan taageersanahay in dekada lughaya loo dhiso oo aad loogu dhiso waxqabadkeega iyo waxtarkeeguma waa anfaci doonaan gobolka Awdal aad bay u anfacayaan haddii la helaado insha Allah waan ducaynaa Daahir Yaale Kaahin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa ninkii nabadda dalka dejiyay weeyaan Daahir Yaale Kaahin ee gobolka Awdal ilaa Berbera ilaa Burco ilaa Hargeysa ilaa meel walba oo Soomaaliland ninkii nabadda keenay weeyaan waan ducaynaa Daahir Yaale Kaahin Mustafa Caraale iska Cable TV Boorame